casharkan waxaad ku baran doontaa eebaweyne idankiis si loo hagaajiyo ama loo kooxeeyo barnaamijyada kugu jirta folderada kala duwan. Hadday folder kugu jiraan muuqaallo, sawirro iyo faylal oo aad doonayso inaad nidaamiso ama kooxayso, muuqaalkan ayaa ku baranaysaa sida loo kooxeeyo ama loo nidaamiyo. Folderkan waxaa noogu jira muuqaallo iyo sawirro. Waxaan doonaynaa inaan isku hagaajino si magacyada isu leeyihiin iyo wixii la halmaala. haddaba saan isku hagaajino oo u nidaamino waxaan tagnaa meel banaan, waxaan dhahnaa right click, waxaan ka dooranaynaa sort by, waxaan ka dooranaynaa name. haddii aan name ka xulano muuqaaladeena iyo sawiradeena waxaa loo hagaajinayaa si magacyada isu leeyihiin iyadoo laga tixraacayo mid kasta magaca uu leeyahay lagana bilaabayo A laguna dhammaynayo Z. haddii aad doorto date, barnaamijyada waxaa loo hagaajinayaa si waqtigooda u kala horeeyeen. waxaa lagu sameeyay midka hadda soo galay, waxaan lagu hoos marinayaa midkii ugu horeeyay. haddii aad doorto tape, xogtada waxaa la isugu hagaajinayaa si isu leeyihiin. wixii muuqaal gees baa la xijinayaa, wixii sawir gees baa la xijinayaa, wixii film gees baa la xijinayaa. haddii aad doorto size, xogtada waxaa loo hagaajinayaa si ay kala cabir yihiin. waxaa lagu sameeyaa midka cabirkiisu weyn yahay, waxaan lagu hoos marinayaa midka cabirkiisu yar yahay. midka labaad aan ku baranay casharkeenan waa group by. group by wuxuu la mid yahay midka hadda aan soo qaadanay. waxba kuma kala duwana balse asagu wuxuu kaga dhigayaa group. haddaba sida xogtan u group-group-ina waxaan meel banaan baa tagnaa, waxaan dooraynaa group by. haddii aan dooranay xogtana waxaa loo group-aynaa si magacyada isu leeyihiin. haddii aan doono date, xogtana waxaa loo hagaajinayaa si isu leeyihiin waqtigoodu. haddii aan doono type, xogtana waxaa loo group-aynayaa si isu leeyihiin. haddii aan doono size, xogtana waxaa loo group-aynayaa si cabirkooda isu leeyihiin. aan ku soo koobay, haddii folder kugu jiraan muuqaallo iyo sawirro iyo wax ka sii badan oo aad doonayso inaad nidaamiso, labada qaab ayaa maraysaa. haddii aad doonayso xogtada inaad nidaamiso oo hagaajiso, dooro sort by. haddii aad doonayso inaad group-ayso ama kooxaysana, dooro group by.